waxaan wadnaa codsi ka yimid walaalkeen guuxaaye kaasan ogeyn asagoo namadaalinaya sidoo kalena qoslaya hadlaya maanta laakiinse intiiba ma lahan 8 bilood ayuu wuxuu ku jira isbitaal ku yaala dalka Hindiya wax waa looga qaban waayay wuxuu codsaday oo dawladda ka codsaday madaxweynaha ka codsaday qof kasta wuxuu qaban karo ka codsaday in fiisa loo helo si dal kale uu tago caafimaadkiisana si fiican loo baaro madaxweyne janaaya ay Hindiya imaade ilaa imaanta waxaan xanuunsanahay xanuun baan dareemayaa madaxweyne waxa u baahanahay visa oo Yurub u baahanahay visa Yurub Talyaani iyo Jarmal wax hore waxaado siiba Jarmal rabaa 9 sano ayuu xanuunsanayay sidoo sheegay xanuunkan uu hayay haddana uu ka sii darooyo markaste caafimaadka Allah hayo xanuunka Allah qaado laakiinse qofka dadaal inuu muujiyo muhiim waay marka waxaan rajaynayaa walaalkeen Ilaahay uu ina caafiyo mid kalena cimaamad ayuu loo soo dhajiyay habeenka 15 bisha 8 inay dhalinyarada ka qayb qaataan sidoo kalena wiilkan Soomaaliyeed la caawiyo waa wiil yacni dadka ay ku yaqaanaan xushmad iyo sidoo kale wiil lagu yaqaan afgaabin wax xumaan lagu marka barahiisa bulshada wuxuu soo gudbi jiray waxyaabo yacni madaala ah waligiis lagu markan qabiil iyo qabyaalad iyo sidoo kale kala qaybin iyo waxyaabo yacni xun inuu soo gudbiyo 2 milyan ayaa ku xiran TikTok iyo in ka badan barahiisa bulshada oo dhan intaas malaayiin dad ay daawadaan marka wiilkan Soomaaliyeed waa wiil caan ah marka wuxuu u baahan yahay maanta caawinaada bulshada ku xiran iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa marka Ilaahay inuu caafiyo wiilkan sidoo kalena qof kastana commentiga ha galo meel kaste ha ku qoro sidoo kale wiilkan Soomaaliyeed ha la caawiyo dalka ayuu ku soo laabanaya hadda rajal aan laakiin waxaan rajaynayaa dawladda inay u hesho fiiso dalal kale sida uu dalbaday Jarmalka kale in loo helo la geeyo la soo baaro insha Allah waxaan rajaynayaa walaalkeen Soomaaliyeed inuu caafimaad helo oo guuleysanaysa walaal insha Allah hanay jabin